بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان وسيرك تليها قاسمياشا قدوميها حقيها قدومي كحيينك لمان مسؤولينتا قبلها دلنيرada علماء diinka iyo inta xirali garsoorka iyo inta kale aan ka tagano hilmaansanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatu runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkaan inaan ka soo qayb galo kala sareynta sharciga lagu magacaabay sareynta sharciga runtiina waa arrin loo baahan yahay waxaan soo gaaray sahradii riyo ka hadlaysa wadooyinka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin taa kaliya intii ay sahra tiri baan la qabay waxaan ku dari lahaa oo kaliya dhinaca booliiska laftigiisa iyagu saxma yihiin bal shicibkii aragnay laftigoodii horta booliiska laftigoodu saxma yihiin habeenkii waxa dhacda xilli dambaanu idaacada ka soo baxnaa idaacada aanu ka soo baxno wadooyinka checkpoint yaal waxa laga yaabaa hal saac inaan taaganahay oo baabuurta ay xiran tahay oo waliba askariga ugu horeeya oo la sheekaysanayo gaariga markaa joojiyay ama beer salaa ku hayo ama sharciyadiisa fiirinayo laakiin ay ahayd wadada inta laga duwo kii hadda wax lagu tuhmayo in qof loo xil saaro wadadii ay furan tahay laakiin hal saac ina taagnaatay ilaa iyo UN-ka ilaa iyo diakooniya meesha la yiraahdo inay xiran tahay runtii caqabad horta ma badna laakiin waxa la xeegana see loo xigtay kana ku nabad galaan barorta tartiib aynu saldhigyada ka bilowno booliiska ka bilowno meelaha ugu hooseysa ko waan ka bilowno sharciyadu waxay qabtaa qofku 48 saac in la hayn karo dambiilaha marka la soo qabto haddaan khaldanayn haddana waxaan ogahay kuwa laga yaabo inay iska xiran yihiin muddooyin badan maxkamadda aan la geyno horta innagii baynu nahay waxa loo baahan yahay ilaahay inta ka cabsano wixii dambi leh dambigooda inaan saarno aan marmarsiyo qaar waxaan arki jiray xataa aan arkaa leeyahay war dambi meelay ka dambi lagu yeeli karaa soo bax lagu yeeli karaa meesha kuma jirto waxa kale waqtigu haduu dheeraado dambiya la soo wada yeelaya qofkii dambi 48 saac maxkamadda lagu geeyo haduu salahay la sii daayo wixii mandaata maxkamaddu goonayso waa gaarkeed baabuurtan wadooyinka xiraya waa dhibaatada degmo ahaan ugu daran caqabaduhu ma yara dhulka kamida maan walba dhul baa la isku dilay maqlaysa garow gudaheed dhulkan sharciyad adag hadaan laga soo saarin inaga maalinta banana lagu dilay run baa fiican ninka shalay lagu dilay wixii lagu dilay maanta biri adigii lagu dilo malayso hadaan hadeer ka hortagin oo in caqabad ay tahay dhulka dawladda iskale dhamaan dhulkii waa wada banaan yahay nin walba xero iska meegaartay qof boos gadan kara male guri dhisanaadoo gataaba ka fiican intaad boos banaan gadan lahayd caqabadaha runta in dhiib loo dilaaciyo boogta dadkana dadka noo imaan maayo ummadii inaga horgal oo ah inaga inay eeganayaan wixii aynu sameeyno hadaynu wanaag sameeyno wanaagaas ku dayanayaan hadaynu xumaan sameeyno xumaantaas ku dayanayaan oo wadadaas ay haynayaan waxa la rabaa inaga buddigayaashii inaynu buddigno sharciguna waa inuu ka sareeyo qof walba min madaxweyne to biyatooni ama isbisiin inagu adeegayaal baynu nahay hadaan khaldanayn dadka adeegtaynu nahay adeegayaal baynu nahay waxaynu u adeegaynaa waa mujtamaca waxa la rabaa wadada san inaan ugu hagno oo ugu duuno oo qof walba intii karaankiisa ninkii dhagax wada ka qaada ajri xasanaad buu helayaa hal dhagax wada ka qaadi subax inta soo kalaad ama dhala meel lagu jajabiyaa dad ka qaadi ajri xasanaad baa helaysa dariiqa qashiyaal haddaad aruurisid ajr baad ka helaysaa xasanaad magaalada way noo qurux badnaanaysa magaalada hadda abni darro qoryo maleeshiya dad qoryo wata afka ka maraya wuxuu yahay ma taqaanid waa dhir shicib uu qaba toota ma qabo kun jeeraan ka hadalay kun milyan oo jeer waa laga hadlay tan iyo maalintii Puntland la aasaasay waa laga hadlayay haddana wax tilaaba laga qaaday male nool wuxuu ku leeyahay macaan aniga maxaa laga qabanaya waxa loo baahan yahay marka annagu hadaanu TV-ga Puntland warbaahinta Puntland wasiirka iga dambeynay wasaaradda warfaafinta nahay ballan iyo axdaanad ka qaadayna qof kasta oo waxsan oo ummadda wanaageeda gudbinaya inaan faafino bila shuruud la'aan wax shuruud iyo wax ku dhishay guriga iyo gurigiisa ugu tagno meelka hadaan weyno xafiiska hadaan ka weyno guriga hadaan ku weyno inaanu geeyno agaasimaha la dagaalanka musuqmaasuqa aad baan uga mahadcelinayaa runtii barnaamijyadan waxa la rabaa sidii walaashayba sheegtay saaro in la badiyo wacyigelin joogto ah
in la bubadiyo dadka la wacyi geliyo sharciyada loo akhriyo xeerarkii loo akhriyo dadka horta wax la gelinsiyo qof aad waxba u sheegin waxba kaba dhaadhicin ka dhig dhibaatada waa kugu sii badnaanaysa horta in maalinba qodob aan qabsanno maanta maxaynu qabsannay gaadiidka iyo sharci darradiisa maalinta gaadiidka aan rifano darawaliinta u yeerano wiilal yaryaroo baabuurta yarkaa wata baa meel walba maraya oo jooga wiilasha yararkaa maba qaangaarinba wadada dhexbartaka maalin weyn mid baan ka dabayday wuxuu leeyahay adar maxaad gartaa sigaar baan ninka ka soo shidanayay wadada dhexbartakeeduna taagan yahay sigaar baan ka soo shidanayay hayaa adar macaan waa maasanta marka ka soo shidatay ii badheebaan maxaan kala iraahdaa waxaan ka wadaa maalin boqol baan qabsano innaga haddaynan ummadda meel san u hagin ma hagmayso innaga inaga falanta wacyi gelintana inaynu badino sharci akhrinta inaynu badino dastuurka in dadka loo akhriyo laftigiisa in dadka loo akhriyo maxaa qofku waajib u leeyahay maxaa waajib loogu leeyahay qof yaqaana ma jiro maanta maxaad waajib aad ugu leedahay maxaase waajib lagu leeyahay qof yaqaana ma jiro nin walba shalu yimid allihii ka alle wax ka galay male waxa la rabaa marka ilmaada riyaalo ummadda inaynu maalsan u rarno meelsan geyno ummadaas cadaalad lagu dhaqo ummadda magaalada degan hor ilaahay nin walba shalay ku noolaa maanta dhintay 2 mitir baa sugaysa labo wallahi ma saddexaad sugayn 2 mitir marka lagu galiyo aad ogaanaysa reer hebel ina heblood ina fulaan ina kan sharci iyo kala sareyn laanta sharcigana waxa keenaya kow qabyaalad baa oo ah afaar qabiil baa oo ah qurun oo dhan baa oo ah haddaynaan iyada la dareerin oo la dagaalamin oo qof walba uu ku xisaabtamay 2 mitir inuu galayo آخره والله نسوحنا هرجلين شرعي رنتان وكالله كان كلتنا وحراسات إنه وأنو سماي سنة يو سكون معمولنا إنه كالله رن أنو قبصنا وبدي يقرأ على هذا كن يكوتشر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحيان قفينا كلا القلم بحنا يا